midda koobaad ee dadkii dhintay qubuuruhu uga daba tegay oo waa soo faagay gebigoodaba dadkii noolaa ee gudaha Soomaaliya joogayna cagaf buu dabada ka galiyayo gabdho yar yar oo iskuul aaday waad aragteen in ay imaadeen gurigoodii oo dunsan iyo waalidkii oo meel ay aadeen aan la garanaynin oo gurigoodii cagaf dabada laga galiyay waa qodobka saddexaad kuwii dibadda diyaarad buu intuu ka daba qaatay buu yiri waan soo celinayaa oo professor jaamacadiga haduu yahay waa inuu soo laabto buu Soomaaliya ku soo laabanayaa buu yiri oo wuxuu ka daba qaatay diyaarad si uu u soo celiyo kuwii dibadda jiray intaas waxa sii dheer reerkoodu maalin walba diyaarad intuu ku qaado way dibadda iska dhiibaan oo dhalinyarada isaga adeerada yaabtiyaasha u yahay mar walba safar dibadda u baxayo koox buu intuu ka haysto baasaboor diblomaasi u sameeyo يا هذا مركي هالك تجاب هالك كجهران ويسكسي ديبان وهالك ويكسي بحان ومضي الصومالية ذا كلنا ولا سوء البلالية هاي بلايطة أيضا عن يقول ذا جيسانو حسن مدحوين مركي لو دورتي مي لو كن لواتن إيو اللابا وحلقة فيلي وحقبت بلقة فيلي وحقبت كيسي وحنا نقضي إن أنتي دمتي وحباشة كجدا بتوكسو قفو وحنا نقطة أنتي نولد إنه ضلك كل دبو waxay noqotay kuwa inuu tahriibiyo isaga diyaarad kasta uu raaco kuwa tahriib la socda oo shaqaale dawladeeda baa la socda oo waa diblomaasiyiin iyo waftiga ka mid yihiin yiraahdo intii iyagu iskoodu tahriibeen wax jarmalku u tagay hal ay soo celiyo khudbadiisa waad ka aragteen dadka Soomaalida way soo noqonayaan haduu jaamacadda Hamburg wax ka dhigo oo professor yahay iyo haduu qaxooti yahayba waa la soo noqonayaa buu meel loo soo noqonayaa ma jirto waad arkaysan gabadha iskuulka aaday gurigeedii oo cagaf geliyay u soo noqoto ka dul ooyeysa waxay ahayd haday dul dan guud degan tahay xitaa gabadhaasi in loo sheego gabadhay sandaqadaha ka fuqso waxaanu ku siinay muxuu ahaayay meel adeeg karto ka dhisan karto sandaqadaada arintan dhoofinta dadka arin Soomaaliya ka jirta weeye waan dul istaagi doonaa qaabka ay u jirto iyo eedda Puntland bayadana mid iyo laba ayaan ka iftiimin doonaa waxaan dhinaca kale to iyadana dul istaagi doonaa waxaa soo noqonaysa Puntland la kala jarjari maayo cid kala jarjari kartaana ma jiro maamul goboleed kale to cid sheegan kartaa ma jiro dhulka Puntland baa ka talisa Highland iyo waxa weeye meesha la yiraahdo ilaa iyo Sanaag Puntland baa ka talisa arintan waxay taabanaysaa masiir umadeed bay taabanaysaa markii la yiraahdo Puntland lama jarjari karo oo sida lala soo istaago maamullo badan bay taabanaysaa oo dhinacyo badan bay ka taabanaysaa iyadana waan dul istaagi doonaa taliya tusaalooyina waa ka bixinaynaa soo dhawaada muuqaalka like saara fogeeya meel dheer ka tuura insha Allah taala aynu ku bilownay Puntland waayay ugu dambeeyay horta gool siyaasadeed oo aan caadi ahayn bay xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dan ciyaaraysay waa markii runta laga hadlo weeyay mar walba oo munaasabad la iskugu imaado ama warbaahin waraysi la siinayo Puntland waxaa shardi u noqotay inay soo istaagto ay tiraahdo war anagu diyaar baan u nahay inaan la garnaqsana Xasan Sheekh Maxamuud war anagu diyaar baan u nahay midnimada ummadda Soomaaliyeed in laga shaqeeyo war anagu diyaar baan u nahay in calaqaadka xumaaday ee dawladda federaalka iyo dawladda Puntland in la hagaajiyo war anagu diyaar baan u nahay haddii nalaga waxa weeye nalaga garhelo inaan gartaanada qaadano haddaan ka garhelnana in laga garbaxan diyaar u nahay dawladda federaalka wax jawaab laga ma hayo Xasan iyo kooxdiisu wax jawaab laga ma hayo kama soo jawaabayaan kama hadlayaan kama waxa weeye hatta dareenba kuma hayso arinta madaxdan maamul goboleedkan dhan ee maamul goboleedkii hooyadii federaalka ahayd ee dhisay ee ugu weyn ee ugu qadiimisan ee ugu daada weyn ugu population badan in waxa weeye laga soo jawaabo cabashadooda waranaw nala garnaqsada in laga soo jawaabo hatta waxa weeye damiirku waa siin waayay حسن مركز سويستا وحوليه عد لو جوجينيا ما جرتو ونف وكا wax u hagaagay iyo wax u qabsoomeyna ma jira dalkiina waa si kala tagaya maalinta ka dambaysa waa la si kala fogaanaya ummadda Soomaaliyeed qabyaalad iyo qurun baana ka sii buuxsamaysa ummadda Soomaaliyeed marba marka ka dambaysa sababta bulshada waxa isku soo jeedi kara madaxweynaha iyo maamul goboleedka oo wada socda haday labada wada socon waayaan de bulshadu waa kala irdhoobaysa 4.5 baa lagu joogaa qabaa'il waxa weeye isku tagay weeye oo maamul goboleedku waxa weeye waa qabaa'il mas'uul ka yahay qabaa'il ayuu mas'uul ka hada Puntland markii la yiraahdo waxa ku soo baxaysa niman hartiya inay leeyihiin baa ku soo baxaysa maamul goboleed iyaga ay leeyihiin hadii la yiraahdo marka kula hadli ma madaxdoodii de ninka kula hadli ma nin hawiya u yahay de wala kala fogaanaya
waxaa la rabaa marka bulshada Soomaaliyeed in la isku soo celiyo la isku soo dhaweeyo madaxda dawladdu garawdo dulqaad yeelato samir yeelato loo dhigay waxa weeye madaxda maamul goboleed isku tanaasul in la sameeyo loo baahan yahay laakiin madaxweynihii dhanaa madax meel ka koreeyo la taabtama lehe hadduu yiraahdo cid loo joojin ma lala hadlin ma kula hadlin ma ka qayb galin ma waxba ka weydiin ma oo hinta uu ka baxo dalku waa la sii kala fogaanayaan Puntland marka garbay leedahay waana gool siyaasadeed oo run ahaantii Saciid Cabdullaahi Deni iyo xukuumaddiisu ay ciyaareen mar haddayba iyagii maamul goboleedka ay leeyihiin war nala garnaqsay isagiina uu sii carabayo oo isaga waxa weeye meel waxa la yidhi curadii ay ka durdurisay aarankii maxaad mooday baa la yidhi geela waaweyn meel uu ka durduriyey dee geeli yaryaraana dhag busino geeduhu ka dulbooday soo maaha marka curadiiba hadday sidaa noqotay dee aarankuna suu yeelayo iyaga u taallaa markood dee waxa weeye say rabaan bay iyagana samaynayaan taasi waa mid ah midda kale Puntland eed culus bay u jeedisay madaxweyne xasan eedna meehe waa xaqiiqo taalo weeye dhabta haddii laga hadlo bulshadu waxay dhahaan waa la eedeeyey iyo waa la qabyaaladeeyey iyo waa la waxyaad xaqiiqada laga hadlo weeye saddex qodob bay xasan ku soo taageen waliba afar aan dhahno waa midda koowaad waxaa la yidhi xasan wax qabadkiisii saddexda sano wuxuu noqday qubuurihii dadkii dhintay in la soo faago war ma been baa lagu sheegay kulli qaar badan baa dhihi doona been bay sheegeen ma been baa lagu sheegay war soo qubuurihii iskuul bulisiya lama faaqin soo qubuurihii saara lama dhihin soo majaajilaystayaashii halyeeyadii iyo ummadii Soomaaliyeed halkii mitire lagaga aasay bixiya lama dhihin war soo lama bixinin war soo maqraati lagama aha ha soo qora ha la soo qoro soo qubuurihii kaleete ee gaashaandhiga iyadana lama bixinin qubuurihii gaashaandhiga xarunta gaashaandhiga soo lama bixinin ayadana maqraati baad ka tihiin malaha waxa weeye wax been iyo wax la isku waxaynayo midna ma iyo wax xasan lagu saaraya toona maaha waa qodobka saddexaad ee xasan waxaa la yidhi markuu waa qodobka labaad aan dhahnay qubuurihii markuu faagay intii noolaydna cagaf buu dabada ka geliyey waxaa ugu dambeysay dhacdadii foosha xumayd ee xaafadaha buuro waxa weeye degmada hodan ka dhacday gabadhii yarayd ee iskuulka aaday waad arkayseen iskuulka intay aaday ayadoo gurigeedii la burburiyey soo noqotay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo hitaa dhulka lala simay xaafadihii dhanaa xaafad aan lagu duulin degmooyinka magaalada Muqdisho waa yarta meel walba lagu duulay dadkii masaakiinta ay guryahooda dhisan waay boosaskooda dhisan waay waa laga qaatay taasina iyadana waa taasi halkaa inoo dhiga waa xaqiiqa wax iyadana marag madoon aweeyay iyo maqraati uma baahna waa qodobka saddexaad ee intii dhooftay ee tahriibtay ee nabadda ku gashay qurbaha ee soo qaraabanaysay wuu ka daba tagay oo jarmalka ugu dambeeyo intuu saxiixay wuxuu yidhi hala soo celiyo Soomaalida bale waliba wuxuu ku daray professorka Soomaaliyeed jaamacadda dibadda xataa ka dhiga waa inuu Soomaaliya ku soo laabtay iyo soo noqon buuyi waa la soo celiyaa xagee lagu soo celin dadka war xagee loo hayaa war anaga Afrika joognee meesha dadka lagu soo celinayo ma la geeyo anaga Afrika joognee ma nala siiyo wax dadka loo soo celinayo la leeyahay waa lagu soo celin anaga ha nala siiyo kuwii Afrika joogay baa baahan kuwii Afrika joogay baa shaqo la'aan kuwii Afrika joogay baa amni la'aan ah kuwii Afrika joogay baa waxa weeye qabyaalad iyo qurun iyo loo kala jeclaysi iyo xal loo kala sameynaya kuwii Afrika joogay baa waxay cunaan balla kuwii Afrika joogay baa shaqo abuur wali waxba hata meel loo sameeyay aan jirin kuwan dibadda joogay laga daba tagay maxaa looga daba tagayaa soo kuwan in la qurxiyo marka hore ma ahayn kuwa iyaga iska soo noqon iyadoo kharash iyo dhibtoona lagu bixinin oo xataa aan eed laga gelin oo madaxweynena soo celiyay saddex iyaga iska imaani kuwan gudaha soo in wax loo sameeyo ma ahayn waa arrin saddexaad oo madaxweynuhu wax qabadkiisa 3 sano uu ku soo khatimayo waa qodob afraad iyadoo dadkii waa la soo celin la leeyahay diyaarad walba oo wadanka Soomaaliya uu kaga baxayo madaxweyne xasan koox baa la saaran adeero iyo abtiyaal iyo qaraabo uu leeyahay maxay wataan diblomaasi bay wataan waa shaqaale hoosaad waa la qaadi diblomaasi waa loo sameeyay dhac dibadda la geeyay halka bay iska dhiibayaan dibadda intii la geeyo halkaas bay iska dhiibayaan soo noqon maayaan diyaarad walba koox buu ka haystaa waana arrin hadda bilaabatayna maaha oo keli asaga gaar waa meehe waa arrin Soomaaliya weligeedba ka soo jirtay oo xildhibaan walba markuu fasaxa tuu qaato uu dibadda aadayo ilaa diblomaasi buu wataa uu baxayo wuxuu ka haystaa ilaa 2 3 4 buu safaaradda la hoos galaa uu yiraahdaa ECA passport visa ECA wadanka uu socdo markii iska sii dhiibayaan intaas wasiir walba sidaas la mid ah madaxweynuhu waa ka sii xaq jiraan ra'iisul wasaaraha isagana sidaas la mid ah oo isagana dad fara badan oo u geeyay baan ognahay marka waa arrin Soomaaliya ka jirto isaga gaar uma aha
laakiin de isaga madax meel ka sareeyo oo la taabtamale isaga madaxweynihii dalka isaga eedeeda qaadanaya dhammaan waxaa la yidhi hadda 2 sano iyo barka ama 3 sano baan dhahnay 3 sano hadda yay gaadhay xasan uu joogo 360 iyo wax shaqaale aha baa dalka dibadiisa iska dhiibay intaasba waxay raaceen madaxda dawladda maanta way baxayaan nin walba 3 4 5 bay wateen 20 bay isdhiibi bari bay baxayaan 30 bay isdhiibi bari dambe bay baxayaan 10 bay isdhiibi bari dambe 5 bay isdhiibi waxa lagu yeeray safar ayay dibadda ay ku tagayeen hadduu noqdo Sheekh Aadan Madoobe oo baarlamaanka koox buu wataa hadduu noqdo madaxweynaha hadduu noqdo ra'iisul wasaaraha wasiirada oo ilaa iyo 70 wasiiro ku xigeenay iyo wasiir fuulaba iskugu jira iyo ergadii iyo la taliyaashii iyo balaadiga kii arrimaha waxoo dhan nin walba koox buu hore u soo kaxaysanaya wayahay haddii koox la kaxaynayo kuwii subaga malabka isku dhuuqay malabka iyo rootiga isku dhuuqayay haddii diyaarad lagu geynayo kuwii tahriibay ee dhibaatada iyo inkaarta u marayna la leeyahay waa la soo celinayaa sidee damirkaadu noqonaya wax la aqbali kara maaha wax la aqbali kara maaha taasina waa taas waa ceeb inteeda leeg waa musiibo inteeda leeg waa wax loo u baahan tahay bulshada Soomaaliyeed inay in badan iyo waqti badanba ay kaga hadasho dhinaca kaleeto Puntland arrimaha ku soo noqonaya aniga naftirkaydana eed baan u hayaa waxay Puntland soo celinayaan Puntland lama kala jarjari karo war haddii badanta Puntland ay weyd oo la kala jari karo oo maamul noqon karto oo intaasoo maamul u qaybsami karto maxaa lagu diidayaa inay maamul noqoto maxaa lagu diidayaa mid labaad maxay madaxda Puntland carabka ugu adkeyn laayihiin SSC Khaatumo maamul goboleed weeye anaga nama quseeyo maxay carabka ugu adkeyn laayihiin SSC Khaatumo markay guuleysatay waxaa soo booday maakhir baa lagu garabnabay dhab cadow baa ila ka shaqeynaya idinka maakhir maxay dhulkeena dhigay maxay ugu dhacay baashi waa isla boodbooday baashi markay isla boodboodayna Puntland xagga ka soo booday waxay tiri wax Puntland oo la kala jarjari kara ma jiro wax Puntland oo la kala jarjari karay ma jiro war maamulkaas madaxda Puntland waxaan leeyahay waa la kala jarjari Puntland jarjar tii xasan uu rabay ee Puntland in la burburiyana ma aha waa tu wax soo kordhin ah isimada dhaqanka madaxda reer Puntland iyo madaxda SSC Khaatumo madaxda maakhir ciday doonta ha noqoto madaxda hartiyeed dhammaan intay isku tagto waa in horta shuruuda loo buuxiyaa SSC Khaatumo shuruud ma buuxiso lama dhiin si maamul goboleed waxa weeye ma noqon kartaa maamul goboleed buuxiso lama dhiin oo dawladda federaalka ma aysan dhiin oo soo buuxiya shuruudahaas lama dhiin waa in shuruuda loo buuxiyaa waa in reer Puntland majeerteenkan hadda ugu badan iyaga ugu badane waa in majeerteen oo qayb jartaan oo tiraahdaan Puntland bal inta SSC ku darso oo majeerteen oo xagga u aroora oo siyaasadda xagga wax ka raadsada waa in xagga warsangari laga soo jaro leeyahay warsangariyow war bal xagga u aroora shuruudda buuxiye SSC Khaatumo halkaana matalaad kale ku yeesha xagga Puntlandna matalaad ku yeesha warso soo kordhay ma soo kordhay Soomaa waa soo kordhay yoo soo kordhay harti buu soo kordhay hartina waa hal qoys Soomaali weyn marka la inii fiiriyo qoys waliba yar baatiin aad u yar baatiin marka waxaa la rabaa intii la tashado in iskarab orodkan iyo iskarab yacan laga daayo oo siyaasadayntan iyo qabyaalada laga daayo war intaa tashataan maamulka SSC Khaatumo laba maamul baad noqon kartaan laba maamul goboleed baad noqon kartaan maamulka SSC Khaatumo shuruudaha loo buuxiyo oo waliba dawladda Saciid Cabdullaahi Dani arinta ha u istaagto arinta waa inay u istaagtaan waa inaan indhahayna ka fiirsanin waa inayna carabka ka laadanin waa inayna cabsanin waa inaad cabsida la joojiyaa weeye iyo Puntland amay burburtaan iyo Puntland amay sida noqotaa Puntland ma burburayso waa in shuruudaha loo buuxiyaa oo talooyin badan laga bixiyaa SSC Khaatumo sida ugu dhaqsiyaha badan waliba lagu buuxiyaa si halkaas maamul goboleedkaasi uu u dhaqaaqo oo hadafkii ummadda Soomaaliyeed ee SSC Khaatumo ee dhamaatay baabaaday dagaalka u istaagtay cadawga iska xoreysay ay hadafkooda uga midho dhal ugu noqon lahaa